madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar iyo wafdi uu hogaaminayay ayaa gaaray degmada Feerfeer halkaas oo shalay isku farasaareen ciidamada gaarka ah ee booliska iyo maleeshiyad ka tirsan ururka Al-Shabaab kuwaas oo doonayay inay ka gudbaan xadka la leedahay degmada Beledweyne. dagaalkii shalay ayaa ahaa mid aad u gaabnaa isla markaana ay ciidamadu ku soo afjareen weerarka ay sheegeen inay ku soo qaadeen Al-Shabaab. haddaba madaxweynaha oo goobta tagay la hadlay ciidamada iyo dadweynaha waxaan maanta joognaa magaalada Feerfeer gaar ahaan xadka dalka Itoobiya iyo Soomaaliya oo halkan ah halkii shalay kooxda nabadiidka Al-Shabaab gacanta lagu saaray waa meel aan xaggan ka fogeyn oo burahaas aad aragtaan dhinaceeda marka waxaan u nimid ciidanka geesiyada muddo saacada gudahooda wixii bilo la qorsheynayay ku soo afjaray inaan u hambalyeeno ciidanka guud ahaan ciidanka booliska gaar ahaan ciddii howlgalkan xaggan Feerfeer ku saabsan waday oo Janaaral Cabdiraxmaan halkan jooga inaan soo hambalyeeno soo bogaadino iyaan aniga iyo Janaaral Xaaji aan u soconay iyo madaxda kale mas'uuliyiinta kale waxaan kale ku faraxsanahay in commanderkii hore taliyihii hore ciidamadu Maxamed Muusar oo isaguna yiri meel la fadhiyo ma jirto ku hadii dalka soo weeraray uu nagu soo biray khibradiisa iyo aqoontiisa uu noola yimid waxay muujinaysaa bislaansho siyaasadeed iyo bulsho oo nin walba inuu fahmay danta guud ee ummaddu inay aad muhiim u tahay waxaan aaminsanahay khibrad fara badan inuu soo kordhiyay sida la socotaan kooxdan argagixisada Al-Shabaab waxa ay ku dhoobaysatay dalka Soomaaliya marka waxay u haysataa meel walba ay gasho sida Soomaaliya oo kale inay dadka gumeyn karto inay kalifi karto in dalal shisheeye soo farageliyaan inay diintii culumadiinkii iyo cid walba sida iyada ay rabto ugu yeedhiso laakiin waxaan u sheegaynaa in maanta aan filayno inay u cadaatay isku daygii toddobaadkan ay samaysay inay tashigii hore mid ka duwan ay u baahan tahay in caawa u cadahay yaan filaynaa aad iyo aad baan u bogaadinayaa marka hore ciidamada iyo shacabkuba sida ay ugu hor yimaadeen hawlahana waan sii adkaynaynaa waan sii wadaynaa kooxdu waxay isku dayday inay deegaanka soo gasho meelo fara badan oo arbushaad ay abuurto laakiin arbushaadii in la soo afjarayo way iska caddayd waxaan shacabka u sheegayaa qayb ka mid ah dagaalku waa propaganda saad la socotaan dagaalku waqooyigu markuu socday garoonka Addis Ababa diyaarada laga mamnuucay waa la gelayaa baa la lahaa oo dadku ay cabsida ka imanaysa halkaas ka badnayd ba dagaalka socday halka marka in waxyaalaha propaganda ee adigu abuurayo meel hablaayu ka soo gelaya iyo meel habla 400 baa la geeyay meel 500 maaha kun maaha 2 hadii soo geliyaan deegaankan cududu ku burburiyo oo midkii soo galay inuu ka bixin lagu sameeyo uu leeyahay marka yani wax walba harin u baahnayn dadku walbahaar uma baahna iyo cabsi waxay u baahan yihiin diyaar garow iyo garab istaag iyo nin walba halka uu joogo xuduudda inuu ka diyaar garoobo cidda waxa wada inta laba laga qaado wajigii hore waan soo gabagabeynay meelo yar oo waxyaalo ku haray oo dhaawac iyo hadii jiraan laga barbaaraya jira hawsha marka aan sifayno dhamayno maalmahan soo socda qorshaha labaad waxa weeye inaan abuurno aag ka caagan argagixisada oo ka baxsan deegaankanaga buffer zone waxa la security buffer zone inaan samaysano weeyaan sababtoo ah ma sugi karno cadowgu intuu noo imanayo inaan halkan ku sugno maaha marka saadiraadii qorshihii noocaas ahana xilligiisa marka la gaaro insha Allah hadii la yiraahdo qaabku noqonayo waa laga wada hadli doonaa shacabka deegaanka Soomaalidu geesiyaashii waxay si fiican isu garab istaageen ciidankooda waxay muujiyeen wadaninimo waxay muujiyeen inay ahayn shacab fikir argagixiso iyo ficil argagixiso ka dhex shaqeyn karo hawsha in la sii adkeeyo ayaa muhiim ah annaguna insha Allah hadii la yiraahdo guulahan maanta la gaaray kuwa u dhigma ama ka waaweyn dhawaanahan soo hoynayna waa nubnaa